walaal magaca magacaygu waxaa la yidhahdaa Sheekh Bilaal. Sheekh Bilaal maxaa halkan u timid maanta? Maanta waxaa u imid walaalo banaanbax looga soo horjeedo dhalinyarada isqarxinayo oo dhibaatada ka wada dalka Soomaaliya ama dadka ay isgaranayaan ayaa waxaan rabaa in codkayga aan ah Soomaali American. Sheekh Bilaal magacyada ku qoran boorarka waxaan aragnaa shabaabka ana al-shabaab ka baxan Soomaaliya shabaabka ma ogolin iyo macnaha saas oo kale marka waa ururka al-shabaab Soomaaliya wax laga soo horjeedo saas waa ka soo horjeednaa actually agana sugnahay ururka al-shabaab waxyaalaha ay ku hayaan dadka masaakiinta shacabka ay barakicinayaan ilmaha yar ay isgaranayaan oo magac ay ku raadsanayaan lacagtana ku qaadanayaan inay joojiyaan waxaas oo waxa u banaanbaxayna maanta uga soo horjeedno banaanbaxa saas uga soo horjeedin hawla dadka Mareykanka maxaa u soo jeenaysa cadaanka ah dadka maxaa leedahay waxaan leenahay anagu haddaan Soomaali American community oo Minnesota degan in aan raalli ka ahayn isqarxintaasi iyo dhibaatada lagu hayo dadka shacabka Soomaaliyeed annagana marna aan maaragtay u dulqaadanayn waxyaalo lagu hayo hadafkeena waxa way Soomaaliya nabad hesho maadaama hadda ay dawlad ka jirto dawladdaas islaamiga in la taageero oo markaas shacabka ay markaas taageeraan ayaan leenahay dawladda Mareykanka wuxuu sheegaynaa in ay wax nagala qabtaan dadka dhibaatada ku haya dalka Soomaaliya dhalinyarada yaryarka oo maaragtay shabaabka oo ka qayb qaadanaya dagaalada ayagana maxaa leedahay fariin u soo fariinta aan u diray waxay tahay in ay maaragtay ka waantoobaan waxyaalo ay sameynayaan waayo qofna jannada ku galaayay hadii uu diro Cabdiqaadir Ali Cumar iyo Sheekh Shariif iyo rag la midka ah hadii isku qarxiyo wax uu ka faa'iiday ma laha waayo qof walaalkiisu dilay jannada ma ku galaayay saas marka ogsoonaadaan ayaa leeyahay jannadu waxay taalaa masaajidada iyo meelaha khayrka inay tagaan